badan waxa abuuradii Soomaaliyeeda oo mid kasta markii uu meesha ka tagay lagu baraarugay dadku ay indhaha u furmeen dabadeedna markii dambe dhaxal laga reebay oo wax laga qoray qaar la yaqaanay caan aha oo la iloobay iyo qaar marka markii baan aad u aqoon laakiin markii dambe wax laga reebay oo buugaag laga soo saaray xasab oo dhan baan kamid ahaa markaas aan bartay ka bacdin Ilaahay wuxuu qadaray subhanahu wa ta'ala inuu halkan aqoon ku yimaado inantiisu ay keento halkan ku xanuunsado dabadeedna waxaan ku soo booqanay dhakhtarka anaga oo koox oo badan ugu horeysay aad iyo aad buu ugu farxay kulanka inaan la kulanay aad baan u sheekaysan riwaayadaha buugga ku qoran iyo sheekooyinka aad ku arki doontaan in badan oo kamid ah ayuu nooga sheekeeyay waxaa ku jirtay nolol iyo hammi weyn oo haddii Ilaahay xanuunka ka kiciyo uu rabay in uu tabliiqeeyo oo ummadda Soomaaliyeed dhex galo oo hanuuniyo waxa xaafad u tago magaalo u tago oo dadka wax soo sheego oo soo wacyi dareen noocaas oo hammi xoog ah ayaa ku abuurnaa kaasi waa aniga iyo abwaanka intii soo dhex martay midina waa mid intan ka maqlay run ahaantii qofba waxba lagu sheegaa hibada hal abuurku waa halkeeda oo dad badan oo Soomaaliyeed baa hal abuur leh oo suugayahana oo aqoonyahan oo wax qora laakiin se qofba waxba lagu sheegaa dabcigiisa iyo nooca uu ah laakiin dadkii Abaan Xasan Qowdhe yaqaanay waxay ku sheegeen waxay ku macneeyeen raganimo iyo fariidnimo iyo gobonnimo eriya noocaas ay ku isticmaaleen qof gob waxaan isiri gobonnimadu raganimadu waa naqaanay Soomaalidu waxay tiraahdaa raganimadu afar astaamood bay Soomaalidu lahayd waxay ahayd ninku waa nin raga oo raganimo waa maxay waxa lagu asteeyaa lagu calaamadsadaa dood iyo deeq iyo dagaal iyo dulqaad afarta arrimood afarta dood ayaa raganimo astaano ah waa dood iyo dulqaad madul iyo dagaal iyo deeq intaas ay ahayd waxaan si gobonnimadu waa intaas oo lagu daray qofku inaanu ahay qof gurux xun waa isaasan u fahmay dadka sida ay u wada sheegayeen adduunka daba orda inaanu ahay run ahaantii noocaankaas oo dhammaantii qofkii doonayay in magac wanaagsan ka tago adduunka ha isku dilina dadka oo hadaba ordina oo isku qabsanina hata u sii daa qofka kugu qabsada arrintaas oo wadaas buugga aan u soo noqdo buuggu runtii waa buugga weyn buugta weyn buu ka mid yahay si qurux badan waa loo soo bandhigay wuxuu ka kooban yahay afwan wuxuu ka kooban yahay 9 cutub 9 cutub buu ka kooban yahay cutub waxaa lagaga sheekeeyay sooyaalkii abwaanka iyo noloshiisii hore intaa uu sheegay baan ugu muhiimsan inuu Hargeysa ku dhashay dhubato xoolo raac ku noqday Hargeysa iskuul ka galay xamar u wareegay fanka ka bilaabay aakhirkiina uu Stockholm ku geeriyooday waa taa sooyaalkiisii hore laakiin riwaayado la dhigay oo badan buu leeyahay waxaan ahaa markaa cutub gaar ah buu inanka buugga qoray riwaayadihii la dhigay oo dhan u sameeyey wuxuu kaloo sameeyey riwaayadihii aan la dhigin riwaayada uu sameeyo dhammaystiran laakiin aan la dhigina baab gaar ah buu ku ururiyey Abaan Xasan Qowdhan iyo Maxamed Mooga Liibaan iyo calaaqadii suugaantii ka dhaxaysay suugaantii uu dhiibay isagana cutub gaar ah buu kaga warramay ku ururiyey heesa qubana ah oo fara badan heesa aan la qaadin nabi amaanka iyo allabariga suugaanu ka sameeyey iyo suugaantii burburkii dalku intuu burburay ka bacdi uu sameeyeen mid walba baab gaar ah ayuu abwaanku iyo qoraagu buugga kaga sameeyey waxa uu kusoo gabagabeeyey suugaanta abwaanka oo qaarkood ka tallaabeen xaydaabka Soomaalida oo loo turjumay luqado kale sida Ingiriisiga oo kale 9 cutub ayuu buuggu ka koobay runtiina wax badan baa laga faa'iidi doonaa marka akhridaa waa hab yar wanaagsan oo nidaam wanaagsan oo aan isku qaldanayn ayaad nuxurkii kala baxaysaa marka tirada guudna nuxurka intaas ku soo ururaysaa laakiin way kala qaybsan tahay oo saas uu kala mawduuciyay marka qoraaga uu sheegay oo Axmed Karaaman dhalinyaro ah oo soo qudhiiso ah nin gob ah runtii aad iyo aad u fiican dadka ay amaaneen dadka yaqaanay bartay da'diisa marka la eego iyo dadaalka uu sameeyay ma aha oo kaliya
dabciga soo weeyay nin wanaagsan oo aad iyo aad u sharaf badan uu mahadsan isagoo kaliya ma mahadsana nin kasta oo ummadda wuxuu dhaxal reeba maanta maadaama dadku dantooda gaarka ah ay u wada ordayaan qofkii ummadda dhaxal u reeba oo dhan uu mahadsan ma haddaas buu qayb ku leeyahay Axmed Karaamana idinka iyo buug iyo guud ahaan ummadda in wax loo kaydiyo iyada waxaan ku dari lahaa xawiyada dadku waa kala nooc qaarkood dantooda u foogay yihiin ku maqay qaarkoodna danta ummadda ay ku maqay inta badan dadka hara ee warkooda baaqiga noqda waa inta danta ummadda u hadhan laakiin se inta badan waxa dayacanta kuwa dantooda shakhsiga way dayacanta laakiin waxa laga yaabaa in dan badan dadka kale dantooda ay qumiyaan ay wax u qabtaan taasi waxay keentaa inay iyagu baaqi noqdaan raggeena xamaalatada ah ee shaqada tagay ee lacagta badan helay warkooda ku go'o halka ku dhamaado marka waxa loo baahan yahay inaynu isqaybino oo kol hadii barkeena ay ummadda u kacday ama culimaha noqdaan ama abwaan ha noqdaan ama hal abuur kale ha noqdaan dadka hawsha ummadda ku foogan ee waxinoo hal abuuray ee dhaxal inoo galay inaguna inaynu taageerno xelaan lagu taageeri karo waxaa ka mid ah tan uu sameeyey Axmed Karaama waa in sugaantiisii la qoro waxaa kaloo ka mid noqon karta in la daabaco oo la maalgeliyo buugaagta markay soo baxaan oo kale waxaa ka mid noqon karta oo ugu yar in buugaagta markay soo baxaan lagu soo daco la iibsado oo iyada qudheeda lagu dhiirigeliyo qoraagii buugga qoray iyo qorayada kale ee laga yaabo